dhagaxdhiga dhismahani loogu talagalay caruurta agoomaha ee ku nool deegaanada gobolka Bari oo uu hirgelinayo ururka dib u dhiska Soomaaliya ee la yiraahdo Somali Rebuilding ayaa laga dhisi doonaa degmada Carmo ee gobolka Bari waxaana munaasabada laga dhagaxdhigay ka qayb galay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Puntland maamulka degmada Carmo mas'uuliyiinta ururka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Carmo ugu horeyn Xasan Maxamuud Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka Somali Rebuilding ee Soomaaliya ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay dib u dhiska Soomaaliya in aanu dhagax dhigno barnaamijkii weynaa ee ahaa xaruntii lagu daryeeli lahaa agoonta Carmo iyo gobolada dariska la ah oo aan halkan ka dhagax dhigayno waxaanu u madcelinaa dhammaan madaxda dawladda nagala soo qayb gashay sida wasiirka qorsheynta iyo gudoomiyaha iyo dhammaan nabadoonnada iyo dadka degmada Carmo farxad weyn bay noo tahay Sheekh Faalax Maxamuud Saciid oo ah xubin kamid ah ururka kana yimid dalka dibadiisa ayaa dhankiisa sheegay in xaruntan ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan bulshada ku nool deegaanka. Bacda salaan waxaanu dhagax dhignay oo wasiirkuna nala dhagax dhigay xaruntii agoonta degmada Carmo. Markaan wax yar sharaxaad ka bixiyo ururka Somali Rebuilding wuxuu muddo ku mashquulsanaa xaruntan xal u helid sidii loo dhisi lahaa. Waxaan ugu talagalnay ma aha Carmo kaliya gobolka Bari, gobolka Highland, Karkaar gobolka Gardafuul iyo dhammaan shacabka reer Puntland inay ka wada faa'iideysan doonaan insha Allah ta'ala dhulkan waa dhul weyn oo 1 kiiloomitir ah ilaahay mahadiha ka gaadhay waxa bixisay degmada Carmo oo ku tabarucday waxaan kaloo xusid mudan injineerada ka shaqeeyay naqshadaas arkaysaan oo soo sameeyay muddo 2 asbuuc qaateen si voluntary waxa lagu tilmaami karo voluntary ayay noogu soo sameeyeen nabadoon Salaad Ciise Rooble oo kamid ah waxgaradka gobolka ayaa dhankiisa xusay wax qabad wax kasta ha yaraato ha weynaato inaan wax ka qabanno diyaar baan u nahay hadii idinka Ilaahay ka dhigo waxaanu rajaynaynaa insha Allah in hawshaan oo balaabatay nin kasta ha ahaato ama xagga Puntland ha ahaato ama xagga khayradda ha ahaato in noo siyaadiyo oo wax lagu daro wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland mudane Shirax Xaaji Faarax ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha xaruntani oo la rabo in laga dhiso iskuul iyo lagu daryeelayo dhalinyarada agoonta wad garanaysaa nina ma jecla inuu agoon noqdo laakiin nasiibka ayaa qof walba meesheeda siiya inagoo dhan wax layna ka rabaa marka arinta iyada inaynu u guntano haday noqoto caalamka waad la socotaan in aad agoonta ama refugeeska waxa lagu magacaabo adduunka ka waxa muhiim ah inaynu hadaynu nahay reer Carmo ama Soomaali ama reer Puntland hadaynu dalka gudihiisa iyo dibadiisa joogo inta baynu u gurmano kana dhigno hirgelino iskuulka halkan laga furayo waa xaruntii ugu horeysay oo loogu talagalay agoomaha oo laga hirgeliyo degmada Carmo ee gobolka Bari waxaana la filayaa inay ka faa'iideysan doonaan bulshada deegaanka Maxamed Madani Universal TV Boosaaso